الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. walaalyaal maanta waxaan bilaabaynaa kulankii aan soo dhaafnay 15 shay baynu ku sheegnay oo lagu najaxo way ka badnaan karaan laakiin 15 kana ugu muhiimsan kow waxa weeye waan maanta bilaabaynaa inaad samaysatid yool cad maxaan ka wadaa goal baan ka wadaa af ingiriiska inaad goal leedahay ama af carabiga hadaf inaad leedahay marka qofku waxaa muhiim ah inuu yeesho goal cad ama hadaf cad ama yool cad kaa rabtid badhehe si uu u noqdo qof guulaystay hadduusan qofku lahayn yool cad wuxuu noqonayaa sidii qof ay mawjadi wadato ama biyo daada ay wataan oo meeshay rabaan ku tuuraan ama wuxuu noqonayaa sidii gaari shukaanta goostay gaariga haddii shukaanta ama driving wheelka hadduu go-o saasuu isaga daba wareegaya soo ma ilaa baasiinku ka dhamaado meel baa laga yaabaa inuu tago waa maya saas oo kale weye mathalan haddaad rabtid inaad magaalada maka aadid waa inaad dariiqeedii u jeensataa laakiin haddii aad tirahdid makaan aadaya laakiin meelaan aado ma garanayo iska taagan tahay meeshaaday ka dhaqaaqi maysid markuu qofku yeesho yool cad ama hadaf cad uu yeesho waxa dhacaya inay arrintaasu ku qoranto maskaxdiisa aan baraarugsanayn oo markaa jirkiisoo dhan iyo tabartiisoo dhan iyo caqligiisoo dhan waxay u shaqaynayaan dhinacaasay u shaqaynayaan arrinta maskaxda aan baraarugsanayn waxaan uga soo sheekaynay qeybta 6 ee dib ugu noqo soomaalidu waxay ku mahmaahaan shimbirba shimbirkiisuu la duulaa qofba haddaad rabtid inaad najaxdid waa inaad dad yoolal cadcad leh ama goolal cadcad leh waa inaad raadsataa haddii laakiin kuwa aan nolosha ka dhacay oo aan lahayn hadaf lahayn oo aad iska daba gashid hadda iyagaad la mid noqonaysaa yuu ka imanayaa samaysashada yool cad ma waalidkaabaa kuu sheegi ma asxaabta maya aduu kaa imanaya adaa fariisanaya waxaa leedahay maxaan rabaa inaan noqdo maxaan rabaa inaan samaysto maxaan rabaa inaan gaaro marka waa mid adiga kaa imanaysa dadka iska dabagala dadku waa laba nooc qolana waxbay hogaamisaa qolana waa la hogaamiyaa kuwa la hogaamiyo iyo dadka tiradiisa badan oo dhanba jidka waxay u baneeyaan dadka yoolalka cadcad leh waa loo banaynaya waxaa la leeyahy kan ka leexo qiso yar baan idin sheegayaa oo yoolka qofku markuu leeyahay yool kaliya inaysan anfacayne inuu marmar loo baahan yahay yoolkaasu inuu leeyahay organized effort wax la yidhaahdo ama waxaa la yidhaahdaa taaqa muntadima daaqo ma garanaysa isu geysan matalan haddii shirkad la samaynayo shirkaddu ma waxay noqonaysaa managerka iyo mudiirka keliya mise xisaabiyay u baahan tahay kaasay u baahan tahay kaasoo shaqaalay u baahan tahay darawalay u baahan tahay waxaasoo dhan tabartoodii oo laysu geeyey oo la nidaamiyey ayaa shaqo soo saaraya oo yoolkii markaas aad u socotay ku gaarsiinaya qiso dhacday baa marka jirta dagaal baa qolo lagu soo qaaday baa la yidhi waa la qabsaday dadkii baa la bilaabay in la laayo marka nin jiisa iyo waxaa isku soo haray iyo nin indhala labadooda mid walba gaar baa loo dilayaa laakiin fikrad bay la yimaadeen ninkii jiiska ahaa wuxuu yidhi warniyo indhaha la-ay tabar baad haysaa adiga lugahaagun waa fiyow yihiin ee waxaad yeelaysaa iqaad aniga dhabarka isaar adna dariiqan kuu tilmaamaya marka iyagoo nidaamiyey tabartoodii efortigoodii daaqadoodii isu geeyey ayay cadowgii ka baxsadeen saasaa la dooni marka haddaad rabti inaa ogaatay arrintaan ka hadlayo oo ah organized effort wax la yidhaahdo ama daaqa muntadima ah ama tabar nidaamsan haddaad rabti inaa ogaatid waxaad fiirisaa gaariga 4 shaag haddii hal taayar laga saaro gaarigaasu meel inuu gaaro ma laga yaabaa
maya inuu dad halligu maahane lagama yaabo. sidoo kale encyclopedia baalka la yidhaahdo oo macluumaadka caalamku dhan ay ku qoran yihiin, ama daa'irat lmacaarif baa af carabiga lagu yidhaahdaa, soomaaliya wax lagu yihahdo ma aqaani. wax walbaa ku yaala, haddana tabari ka soo bixi mayso meeshaan. warsadihii iyo qiطacoodii iyo magaranaysa beerihii iyo wixii dhan waa ku yaalin, laakiin waxaanu ma nidaamsana say kuwo wax taraya ay u noqdaan. sideedana ogow, quwo tabarta la nidaamiyey ama organized effort waxay tahay quwa, xoog bay keenaysaa. adduunkiina xoog la-aan ma soconayo. kuguma fillo walaal inaad samaysatid hadaf cad keliya, ee waxaad u baahan tahay inuu ku jiro doonid ku gubaysa ama rabitaan dhab ah. horaan uga soo hadlay taasna, iyo adigoo yool cad yeesha iyo adigoo markaa ficil ku dara. saddexda saasay isu daba joogaan. marka hore waa ina wax ku gubaya jiraan oo rabtid inaad gaartid. tan labaad waa inaad yool cad leedahay. tan saddexaadna waa inaad ficil ku dhaqaaqdaa. ee ficil haddaadan samayn waxba maaragtay iman mayaan. haddii yoolkaagu uusan ahayn mid cad oo uu yahay mid mugdi ku jiro, ogow guusha aa gaartidna mugdi bay gelaysaa. waa inuu yoolku marka si fiican u cad yahay. si yoolkaagu ama hadafkaagu ama goolkaagu u caddaado, afartan su-aalood waa inaad isweydiisaa. waxaana lagu soo koobaa 4 xaraf oo af ingiriisa oo la yihahdo WWWH. maxay yihiin? waxay ka kooban yihiin 4 kelimadood oo lasoo gaabiyey. what, maxaan rabaa. when, goormaan rabaa. why, maxaan u rabaa. how, see ku gaaraya. 4taas su-aalood haddaadan hadafkaagu ayan caddayn oo mid walba uusan ku caddayn, hadafkaagu ma cadda. waxaan raba waa maxay, goormaan rabaa, maxaan u rabaa, see ku gaari karaa. tan kale walaal, yool baan samaystay keliya guul ku gaarsiin mayo. ee maxaa loo baahan yahay? xataa adigoo samaystay yool cad, xataa adigoo qaba ma garanaysaa doonitaankii dhabta ahaa, xataa adoo action ku daray iyo ficil, guushi madmuun ma ahee. marmarka qaarkood waad kufi, waad dhici, waad khasaari, waa ilaa marmarka qaarkood aad istiraahdid lamaba gaari karoba. laakiin guushii markaasay ku dhowdahay. waxaa la rabaa inaad noqoto mid keliya adag, mid sabar leh, mid aan ka weecweecan shaqadii iyada ahaa iyo hadafkii isagu lahaa. ogowna hal kale, dad badan oo ku shaki geliya weyn maysid. war waxaa lama gaari karo, war arrintaas waa adag tahay, war hayslugoynin. alla dadkaasu fara badana dariiq walba ayay taagan yihiin. kuwaasuna yeeyan hadafkaaga ayan kaa leexino. waxaad daawataa 10ka dardaaran aan ku sheegay qeybta 16aad, oo dad badan oo cuquushoodu saqiira tahay oo yar tahay baa marmarka qaarkood qof zaciima oo maskax weyn waxay ka leexinayaan dariiqii oo waxay u diidayaan inuu guushii gaaro. dardaaran iyo ugu dambeyn, noloshu walaal ma aha xarash iyo madax. wax inta saa loo tuuro dhinac laiska aado, madow iyo caddaan keliyana maaha. ee waa wax u baahan in aad aad iyo aad u fikirtid, aad iyo aad u dadaashid, aad iyo aad wax u qabsatid. haddii ay dhacday inaadan maanta la joogo aadan lahayn gool cad ama hadaf cad aadan lahayn ama yool cad aadan lahayn, hadda samayso. haddadaa la joogo fariiso. maxaa nolosha aan doonayaa inaan gaaro ay tahay? dadka aynu ka soo sheekaynay kulankii hadda kan ka horreeyey oo 99 ahaa oo Napoleon Hill uu helay inay 95% dadka ay yihiin kuwa aan najixin. ceebtooda ugu weyn maxay ahayd? dadkaasu ma ayan lahayn yool cad, ma ayan lahayn. waxaan kaloo kusoo gabagabeynaya warkayga, yoolka inuu caddaado markaan ku leeyahay haw qaadanin hal yool keliya samayso. yoolalku waa fara badan yihiin. yoolal dhowdhow baa jira, kuwa dhexaa jira, kuwa fog baa jira. marka waa inay iskabayaan. yoolkaagan dhow waa inuu kan kale, matalan waxaa la yidhahdaa yoolka dhow waa wixii 1 sano iyo waxaa ku xidhiira.
yoolka dhexe min 5 sano ilaa 10 sano, yoolka fogna waa wixii 10 sano iyo ka dambeeya. marka yoolalkaagu waa inay iska bayaane, maana yool mashriq inuu yahay oo bari yahay, midna uu bogox yahay, midna uu waqooyi yahay, midna la waa inay isku dhinac ujeedaan. marka walaal saa u ogow yoolka cad qiimaha uu leeyahay, inaan laga maarmin. dadka aan yoolka cad lahayna inay yihiin dad fashilay oo xayaatada ka dhacay. dadka yoolka samaystana oo hadday yoolkan gaaraana mid kala samaysta, kan markay gaaraan mid kala samaystana, inay yihiin kuwa farta lagu fiiqo oo adduunyada meel ka gaara. intaas ayaan warkayga kusoo koobaya. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.